Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum. Guushu waxay kaaga baahan tahay in aad cusboonaysiiso go'aamadaada. Isbeddelka wuxuu kaaga baahan yahay in aad u dhoola cadayso ee kaagama baahna wejigabax iyo cabsi. Guusha iyo isbeddelka waxaa loo doontaa midka ay gacantiisa ku jirto oo Allah ah subxaanahu wa tacaala. Intaad ka fogaanayso Allah subxaanahu wa tacaala kaa fog guul iyo nolol cusub. Nolosha cusub waxay ka bilaabataa xiriirka idin dhexeeya adiga iyo Rabbigaaga subxaanahu wa tacaala. Dembiga iyo macaasida ayaa u baahan in lagu sameeyo isbeddel, maxaa yeelay waa hambareegyada kaa hortaagan in aad noloshaada beddesho. Nolol cusub raadi, farxad iyo barwaaqo raadi, qalbi degan iyo laab qabow raadi, ka raadi meesha laga heli karo. Iisan nafta been kugu sheekayn, maxaa yeelay waa cadowgaaga koowaad. Noloshee ayaad jeceshahay inaad ku noolaato? Ma nolosha ama maalinka kala barkeeda ah, ama nolosha waarta oo aan dhammaan? Ogow in aad isbeddel samayn kardho oo aad nolol cusub beeran kardho. Kusoo dhawaada walaalayaal qaybtii labaad ee beddel noloshaada. Qaybta hore waxaan kusoo tilmaamnay isbeddel haddii la doonayo awalka in laga soo bilaabo qalbiga oo ruuxa qalbigiisa uu ku dadaalo. Qalbigaasi markuu soo hagaago oo qalbigaasi raaxada iyo deganaanta iyo xasiloonida uu soo dareemo inay iman kardho ruuxa noloshiisa inuu beddelo. Waxa u baahan isbeddelka awal waxaan kusoo sheegnay waxay ahayd in la toobad keeno oo laga soo baxa xumaha iyo baktiga iyo dembiga, leana waa hambareegyada inoo diida in nolosheena aynu hore u socono. Isbeddel haddii aad doonayso, adiga dooro, ayaan laguu doorin. Adiga qaab noocee baad jeceshahay inaad u noolaato? Inta adduunka aad joogto, qaab noocee baad jeceshahay inaad u noolaato? Maalinka aakhiro, qaab noocee baad jeceshahay inaad u noolaato? Naftaada maanta haddii jaxiimo aad ku beedho oo jaxiimo aad geliso, in hadhowti naftaasi janno ay gasho waa naadir. Maanta haddii jannatul firdowsi adduunka aad ku dareento, maalinkaas inaad geli doonto waa sida Eebba subxaanahu wa tacaala laga rajaynayo. Ee adiga dooro, qaab noocee baad doonaysaa inaad u noolaato? Ma farxad baad dooni? Murug miyaad dooni? Ciriiri, walwal, walbahaar, cabsi? Qaab noocee baad jeceshahay in adiga aad u noolaato? Ruuxa nolosha dambe ku guulaysanaya waa ruuxa inta adduunka uu joogo qalbigiisa uu dareemo macaanka nolosha. Waxaan ku darayaa maanta xadiisul qudsi Allah subxaanahu wa tacaala uu noogu tilmaamay: yaa cabdii kun kama uriid akun kama turiid. Addoonkaygiiyow ii noqo sida aan kaa doonayo, anna waxaan ku noqon sida adiga aad doonayso. Man aslaxa baynahu wa bayna Allah aslaxa Allahu baynahu wa bayna khalqi. Ruuxii hagaajiya isaga iyo Rabbigii waxa u dhexeeya, Allana wuxuu hagaajiyaa isaga iyo dadka wixii u dhexeeya. yaa cabdii turiid wa ana uriid laa yakunu illa ma uriid. Addoonkaygiiyow adigana waxbaad dooni, anna waxbaan dooni, ma ahaado ilaa sida aan doonayo mooye. Fa in adactanii fiima uriidu aataytuka maa turiid. Haddii aad igu yeesho sida aan kaa doonayo, waxaan kuula iman sida adiga aad doonayso. Wa in casaytanii fiima uriidu atcabtaka maa turiid. Haddaad igu diido sida aniga aan doonayo, adiga waxa aad doonayso daal dhib baa kaa soo gaari. Thumma laa yakuuna laka ilaa ma uriid. Intaa kadib kuma sugna ilaa wixii aniga aan doonay mooye. Isbeddel haddii aad doonayso, Allah subxaanahu wa tacaala la samayso xiriir. Allah subxaanahu wa tacaala la samayso xiriir. Isbeddel adiga haddii aad doonayso. Isbeddelka aad buu u badan yahay qaabka loo sameeyo, laakiin waxaa awal ah Rabbiga subxaanahu wa tacaala xiriir la samayso adigoo naftaada beddelaya. Allah muxuu tilmaamay: inna Allaha laa yughayyiru ma biqawmin xataa yughayyiru ma bianfusihim. Allah subxaanahu wa tacaala duul ma beddelo oo xumahoodii wanaag looguma beddelo ama wanaagoodii xumaan looguma beddelo ilaa iyaga naftooda ay beddelaan. Haddii maanta adiga noloshaada dhibaato badan aad dareemayso, beddel. Wanaagga Allah ku siin doona subxaanahu wa tacaala. Adiga maanta ciriiri haddii aad dareemayso, beddel. Ka soo laabo, Allah subxaanahu wa tacaala wanaag buu ku siinayaa. Isbeddelka nolosha awal waxaa ka ah in naftaynu aynu beddelno xumaha, dembiga, dhibaatooyinka, caajiska, gadaal u dhigga, beri baan sameynaya, waan yeeli doonaa. Waxaasoo dhan beddel. Hadeer samee, hadeer qabo, hadeer ka dhex bax naftaada beddel. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday in isbeddelka uu ku siin doono. Rabbiga subxaanahu wa tacaala xiriir la yeelo adigoo ka soo gudbaya hambareegyada ay nolosha kugu hayso.